magaalada Laascaanoodna saxafiyiinta ka howlgala gobolka Sool ayaa waxa ay qabteen kulan looga hadlayo dilkii Allah u naxariistay wariye Axmed Sakiin Faarax oo ku beegan 23 Oktoobar waxaana ay u aqoonsadeen maalintaasi maalinta saxaafadda gobolka Sool. warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Laascaanood wariyahayaga Cabdikariim Mudan. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo lagaga hadlayo dilkii wariye Axmed Sakiin Faarax oo ka soo wareegatay muddo sanada eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo bahda saxaafadda ee ka howlgasha xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo halkaasina saxaafadda iyo eheladuba ay ka hadleen ay sheegeen inaysan jirin waxa tan gacanta loogu hayo Axmed Sakiin dadkii ka dambeeyay dilkiisa waxaana halkaasi looga duceeyay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo kala saxaafadda gobolka Sool ee 23 Oktoobar waxay u aqoonsantay maalinta xuska saxaafadda ee gobolka Sool taasoo halkaasi ay ku saxeexeen gudida saxaafadda ee kala duwan ee gobolka Sool. aan nahay suxufiyiinta gobolka Sool waxaanu go'aansanay maanta oo kale sanad walba in aan xusno dilka loo geystay Axmed Sakiin Faarax waxaan ku rajan weynahay in maalin aan soo qaban doono gacan ku dhiiglihii ka xaqdarnaa ee dilay wariyaheena sanadkii ku buuxsanay oo 23 Oktoobar ah ilaa intaas marxuumka dhintay wax ka qabtay iyo wax dabagalay iyo wax meel lagu hayo hadalkiisii ma bahayno sidaa la ajigeen waxaan leenahay maamulka meesha ka dhisan goldolada Faarax ku maqan yahay qaybteeda tan kale wariyayaasha iyagii baa cadaynaya nin walba in maamul gurigiisa ugu dhacay baacsaday kii joogayna siic ku joogay kii dhintayna ku baxay waxay markaa raadiyaan in isagii raadsanayo ninkii baacsanayo daba jooga taana annagu awalba kama sugayn inay wax noo raadiyaan أنا وحن كسر بجبيني أو تعاون إن أي ندعينه هل كان كسر موجنا بوسكو نجتنا. عبدكريم نورل صومالي channel مقالة Laascaanood. magaalada Laascaanoodna saxafiyiinta ka howlgala gobolka Sool ayaa waxa ay qabteen kulan looga hadlayo dilkii Allah u naxariistay wariye Axmed Sakiin Faarax oo ku beegan 23 Oktoobar waxaana ay u aqoonsadeen maalintaasi maalinta saxaafadda gobolka Sool. warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Laascaanood wariyahayaga Cabdikariim Mudan. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay oo lagaga hadlayo dilkii wariye Axmed Sakiin Faarax oo ka soo wareegatay muddo sanada eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo bahda saxaafadda ee ka howlgasha xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo halkaasina saxaafadda iyo eheladuba ay ka hadleen ay sheegeen inaysan jirin waxa tan gacanta loogu hayo Axmed Sakiin dadkii ka dambeeyay dilkiisa waxaana halkaasi looga duceeyay in Ilaahay jannadii ka waraabiyo kala saxaafadda gobolka Sool ee 23 Oktoobar waxay u aqoonsantay maalinta xuska saxaafadda ee gobolka Sool taasoo halkaasi ay ku saxeexeen gudida saxaafadda ee kala duwan ee gobolka Sool. aan nahay suxufiyiinta gobolka Sool waxaanu go'aansanay maanta oo kale sanad walba